shirkoodani jira ay doysaaka si wada jira ugu qabteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku leeyahay magaalada Hargeysa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Axmed Muumin Seed iyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdilaahi Urcade ay waxay jawaab ka bixiyeen hadallo lid ku ah Somaliland oo ka soo yeedhay madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed maanta waxaan saxaafadda madaxa bannaan Somaliland iskugu yeedhnay runtii inaanu ka jawaabno kelmad uu ku celcelinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh baryahan dambe runtii kelmadaasi waxa ka soo wareegtay iminka dhowr iyo 7 saacadood wuxuu ka dhawaajiyay in Sool iyo Sanaag ay Soomaaliya ka mid yihiin Somaliland ayna Soomaaliya ka go'ayn runtii dhowr iyo 7 saacadood haddaanu nahay xisbiyada qaranka waxaanu sugaynay xukuumadda maanta jirtay madaxweyne Siray madaxda kayayna ka jawaabaan runtii way ka jawaabi waayeen mar haddii ka jawaabi waayeen waa tala qaran anagana soo gaadhay inaanu ka jawaabno runtii waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya Somaliland ma go'in Somaliland waa qaran jira oo madax bannaan haddii qalalaasa iyo dib u dalbo doonayo madaxweynaha Soomaaliya runtii waxaan leeyahay inta adiga maanta ku haysata ayaa kugu filan laakiin shacabka reer Somaliland waa shacab qarannimadooda iyo gooni isku taagoogo maqdooyaan cidna u daba fariisanin taa waa inaad muxuu ahaay taa waa inaad garosataa walaal madaxweynaha Soomaaliya qodobka labaad waa xaalad telefishinada qaranka telefishinada dalkeena ka baxay wasiiro loo diray xukuumadda u dirtay gobolka Awdal si ay xuraan iyo xal ugu helaan xukuumad kasta waxay leedahay wasiiro gobol marka la yiraahdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa ka jira waa inay u dirtaa runtii wasiirada waxay xukuumadda u dirtay inay ka mira dhaliyaan oo gobolka ay siyaasadiisa iyo halka gobolku maray iyo xaaladda gobolka iyo cod inay raadiyaan bay ahayd runtii waa wax matarayaal wasiiradaasi markii la dhageysan waayay ee salaadiintii gobolka iyo dhalinyartii gobolka iyo waxgaradkii gobolku dhageysan waayeen waanu joognaa xalan ka soo guriyooyday oo naxasbad ku soo wada joognaynta wallahi inuu nin caaqilkiisa la kulmaan ku jirin wasiirada waxay wax ka sheegeen salaadiintii Somaliland ee u tagay Awdal martiqaadka ay gobolka dhigooga ka heleen ay runtii wax ka sheegeen taas waa ceeb qaranka Somaliland baan leenahay ma kala qoqobna qaranka Somaliland waa isku mid salaadiinta gobolka Awdal ceer gaabe iyo gebel way teey karaan kuwa Somaliland gobolada kalena Awdal way teey karaan arrinkan waxa la waa arrin gaf ku ah qarannimadeena waa arrin gaf ku ah dhaqanka salaadiinta waa arrin meel kaga dhacay shacabka reer Somaliland ay dhigtooda maqashay saaka sadeed u la socotiin dadka isweydiinaya aad baa la isku weydiinay runtii arrinka waxaan leenahay anu muxuu ahay maadaama aan ahay gudoomiye ku-xigeenka wadani arrinka wasiirada ka soo yeedhay xaalka horeeyana ka bixinaya ka kalena wax laga soo doonaa shacabka reer Awdal waxay ka yiraahdaan bal laga sugayaa arrinkaas waxaan leeyahay arrin gafa ma hayn wasiiradu inay salaadiin ay wasiiro u yihiin inay dadka kala qoqobaan ma hayn waxaan doonaynaa in yar inaan iftiimino arrinta heshiiska labada xisbiyada qaranka iyo xukuumadda saddex xisbi qaran iyo xukuumaddu ay ku heshiiyeen marka arrintaas waa mugdi badan la geliyay rag hadlay oo nin toos u hadlay iyo nin gegiyeeshay iyo nin aan hagaag u odhanba la leeyahay dadku ay leeyihiin waxaanu jecelahay in ummadda reer Somaliland gudaha iyo dibadba inaan u caddayno in heshiiskaasi yahay heshiis turjubayo wixii ay ku heshiiyeen hore ay ugu heshiiyeen komishanka qaranka saddex xisbi qaran xukuumadda iyo doonarisku ka ayaa heshiiska rasmiga ee raacaya waka gaanu gaadhnay xukuumadda iyo xisbiyada qarankuna waka waxaanu doonaynaa inay noqdaan gelintii codbixiyaashu inay si isbarbar socda ay u dhacdo oo aanay midna caqabad ku noqon waxaa heshiiyey horta